haddana waa amarale anoonti uga go'ay haddana qalkeeda tago haddana gistaago haddana eray uma sheegi karo wiil isku ekaysiinaya dayaxdal nuurshe oo la qabtay wuxuu tabcaday garkiisii oo photoshop ah wuxuu isku cadeeyay filter wuxuu xaday codkiisii wuxuuna iska raadinayaa qaabkiisii oo kale waxaas intaas u sii dheer xaasidnimo oo uu xaasidayo qofkii asagoo uu isku ekaysiinayay haddaba maxaa ku kalifay dhibkaas oo dhan inuu maro maxayse tahay xaasidnimada uu ku sameeyay fanaan dayaxdal nuurshe muxuuse yahay magaciisa saxda ah guud ahaan barnaamijkan oo faahfaahsan waxaad uga bogan doontaa warbixintan fadlan daawada haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saaro calaamada gambeelka aan furo si aysan kuu dhaafin barnaamijyada xiisaha badan ee aan soo gelino wiilkan oo lagu magacaabo magaciisa saxda ah xidig yare waa sida asagoo uu sheegay wuxuu aad u jecel yahay inuu isku ekaysiiyo ama qaabkiisa kala yeesho fanaanka dayaxdal nuurshe balse waxaa muhiim ah qofka aad isku ekaysiinayso ama aad jeceshahay inaadan inkirin oo codkiisa aadan xadin isla markaana aadan xaqirin bal horta intaanaan faahfaahinta u gelin asagoo iskaana baro ugu horreyn waa magacayga Axmed Cali Cabdi waxaan ku dhashay dhagax buur ama kilinka shanaad si loo yaqaano waxaan wax ku soo bartay ama ku soo barbaar magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan waxa fankeena waxaan soo galay adiga 2016 wixii ka dambeeyay fanaan iyo inaan heesa bilaabay xidig asuu sida uu sheegayo waa fanaan oo mar dhufanka ku soo biiray waliba sida uu sheegay 2016 ku soo biiray balse lama dhihi karo fanaan oo anagu ma dhihi karno sababtoo ah waxaan arki jirnay hees la xado ama hees la koobiyeeyo laakiin face iyo action iyo cod la koobiyeynayo wali maanan qof dhan oo asigiyo nool la koobiyeynayo wali hore uma arkin bal horta waxaa laga yaabaa marka sidaas kule inaan la yaabto balse cadeymaha aan ku wado balse fiican u fiiri wiilkan wuxuu falash ka shitay hees la yiraahdo ii kaalay oo uu leeyahay anaa iskale codka iyo wax dhan iyo laxanka wax dhan balse xaqiiqada ayaa ah midtaas ka fog oo heestan waxaa iskale fanaan dayaxdal nuurshe oo maca codka iyo wax dhan iskale bal ila fiirso sida uu qaadayo iyo heesta qofka iskale asaga iyo dayax ayaan sabab dhigi doonaa bal u fiirso labadeenu kala maarmi mayne hadda kaalay labadeenu kala maarmi mayne kaalay labadeenu kala maarmi mayne hadda kaalay labadeenu kala maarmi kaalay labadeenu kala maarmi mayne hadda kaalay labadeenu kala maarmi mayne sida isbarbardhigaba ka arkaysiin heestan waa heestii dayaxdal nuurshe oo erayadii iyo laxankii iyo codkii macal muusigii oo iswata kaliya asaga waa playback fariyo nuxnuxinaya heestan waa heestii dayaxdal nuurshe bal horta aan eegno heestan originalkeeda cidda iskale heestan originalkeeda waxaa iskale fanaanka loo yaqaano aadan faarax samatar bal waxay raldhigaysa horta originalkeeda kaalay labadeenu kala maarmi mayne kaalay labadeenu kala maarmi mayne bal haddana mar kale ila dhegeyso wiilkan isku qaabka ekaysiinaya dayaxdal nuurshe asagoo oo koobiyeynaya hees kale oo dayaxdal nuurshe sheegayaan inuu asagu leeyahay ka jawaabay anigu yee maxaa loola jeeda ka jawaabay anigu yee maxaa loola jeeda ma xuma inaad fanaan taageerto mana xuma inaad heesihiisa koobiyeyso balse waxaa kugu ceeb ah inaad codkiisii iyo muusigiisii wixiisii dhammaa inta goob la timaado aad fariyo u nuxnuxiso ee dhahdo aniga iskale waxaase ka sii xun inaad qof aad adigu sidaas ugu ekeysayso heesihiisa aad koobiyeysay aad xiga weyso xataa aad u quri weyso inaad dhahdo waan taageeraa bal la dhegeyso mar la weydiiyo su-aal ah fanaanka aad taageerto magaciisa
waxa uu ku jawaabay فنان بو تاغيرا فنان بو كديدا وجعل yahay inuu maanta heerku taagan yahay gaar bal fanaanka taageertay ama aad heesiisa dhageystay ama jacayshana ku dayto horta aan fanaaniinta hore dadka ka dhan fanaaniinta hore taageerna laakiin aan hadda waxaan taageeraa fanaaniinta hadda mid kamid ah oo xidiga geeska marso cumar ninkaas aan jeclahay heesiisa badana waxa uu leeyahay waxaan taageeraa Mursal Muuse Cumar bal u fiirso qaabkiisa faruuriyaha sida uu ka siinayo tinta sida uu u jartay macnaha waa actionkii nooceeda yaxtar nuurshawa kaliya waxa uu dhiman kulli inuu iscadeeyo cadeentana uu sii dhiman tahay mararka qaar waxa arkaysa asoo istaag isku duubay heesiisa oo macnaha qaabkiisa kala u soconaya waxa qofka uu koobiyeeyo oo jecel yahay oo caadi si dhab uga muuqata wada yaxtar nuurshawa hadana waxa qiraya wuxuu leeyahay macnaha ma taageeraba anigu waxaan taageeraa Mursal Muuse marka fanaaniinta cusub fanaanin koobiyo arki jirnay fanaanin waxaan soo qaaday arki jirnay laakiin ma ana arki jirin markaan ka hor fanaan actionkiisi iyo qaabkiisi iyo inta xada iyo heesiis wixii ma isku duuduub hadana dhahaya ma taageero daawadayaasheena qiimaha leh ku mahadsantihiin daawashadiina barnaamijka fadlan hadii channelku cusub subscribe saaro calaamada gambalka aan furo si ay ku dhaafin waxyaabaha xiisaha badan soo gelino wad mahadsantihiin